بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال تنوى حلقة شناد وكملة سلسلة دينية عقيدة المسلم إن شاء الله تعالى. وحن كهل الدونا دليل كوجه الرئية أدلة جريتانك إلهي سبحانه وتعالى، ودليل الفطرة. مركا أنت عن فطرة باللابن waxaan kula talinayaa qofku intuusan xalqadan dhageysan inuu xalqadii afraad u dhageysto. alfitra marka laga hadlayo culimadu waxay yiraahdaan fitradu waxa weeye awood ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nafta bini aadanka uu ku abuuray oo ku kaydiyay ilmuhuna ay la dhashaan. awooddaas marka waxa dhici karta marka ugu horeeyo ilmuhu uu dhasho ilaa uu ka qaan gaaro ama ilaa uu maaragtay uu wax ka kala sooco ilmuhu in aysan waxa dhici karta qofka aad uga muuqan, laakiin nolosha inta uu ku jiro maalinba way soo muuqanaysaa, wayna kobcaysaa. fitradaas marka waxa ku kaydsan waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku inuu qirsan yahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa. haddii aan laga bedelin marka ilmahana waxa weeye oo aan taxriif iyo dad lumiya aysan meesha soo gelinin, waxa weeye qofku sidaas u toosnaanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi qur'aankiisa faaqim wajhaka liddiini xaniifa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha. waxaa le nabiga la amrayaa iyo qofka mukhaadabka ah, toosi wejigaaga diinta ku toosi adigoo waxa weeye ka iilan waxyaabaha baatilka ah, laazimna fitrada ilaahay uu dadka uu abuuray weeye. nabiga calayhi salatu wasalaam xadiiskiisa sii fasira kullu mawluudin yuuladu cala alfitra. ilmo kastoo la dhalo waxaa lagu dhalaa fitrada, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi. labada dhashay ayaa waxa weeye yahuudi ka dhiga ama kirishtaan ama dabcaabud. kamaa tuntiju lbahiimatu bahiimatan jamcaa'a hal tuxisuuna fiiha min jadcaa buu nabigu calayhi salatu wasalaam. sida xayawaanku uu u dhalo waxa weeye xayawaan oo dhammaystiran oo aadan arkayna asagoo go'an maalan dhagaha iyo wax lamid ah xubnaha ka go'an yihiin, saa dhammaystiran ugu dhalo, hadhowtana bini aadanku ay iyagu xubnaha qaar ka jaraan sida dhagaha iyo wax lamid ah, ayaa ilmuhuna wuxuu ugu dhashaa iyagoo toosan oo dhammaystiran oo ay u dhammaystiran tahay wuxuu u baahnaa. hadhowtaa waxa weeye waxaa dhici karaysa inay qola inta u timaado ay ka leexiyaan waddadii saxnayd. marka fitradu waa middaas weeye. haddii maalan tusaalayaal la rabo oo kale waxaa ka mid a tusaalooyinka maalan tusaya fitrada ilmaha yar oo kale, haddii asagoo sii jeeda maalan gadaal wax looga dhufto, wuxuu fiirinayaa dhinac wax uga yimaadeen, mana yeelayo in la yidhahdo waxba isaga kaa dhicin waxaan cidna kuguma dhufan. taasi wixii ilaahay ku dabeeceeyey oo ku fitreeyey weeye, mana la dhihi kara wax weeye dad baa baray. sidaasoo kale ilmaha yar marka qaar su'aalahooda waxaa dareemaysaa inuu raadinayo ujeeddada waxaa meesha u yaallaan. maxaa waxaan halkaan loo dhigay, cirku muxuu buluug u yahay, qoraxdu maxay galbeed ugu dhacdaa buu ku weydiinayaa. arrintaasna tacliim iyadoo aysan cidna aysan barinin, cidna u sheegin buu ku weydiinaya. taasna wax ilaahay ku dabeeceeyey. sidaasoo kale ilmaha yararka waxay fahmi karaan inay cadaaladuna fiican tahay, eexduna ay xun tahay. waxyaabahaasna marka waxyaabaha ugu fidreeyey bay ka mid tahay. waa runtii waxa weeye macluumaad badan baa bini aadamka ilahay ku kaydiyey. fitradu marka sidaan hore usoo sheegnay xilliyada ay aad u muuqato waa xilliyada qofka dhibaatadu ay haysato. markaas waxa weeye wax alla wixii kale qofku uu iska dhaadhiciyey oo maaragtay uu isku sheekeeyey bannaankay ku dhacayaan oo bannaankay maaragtay ay imaanayaan wixii marka waxyaabihii kale qofku asuu iska dhaadhiciyey xilligaas oo dhibaatadu ay haysato waxaasoo dhan way baaba'ayaan. waxaa soo haraya inuu ilaahay subxana wa taala dhinaciis kaliya u cararo. ilahay wuxuu yidhi idaa masakum adurru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah. haddii waxa weeye dhibaatayn ku taabata badda dhexdeeda waxaa dhumo oo baaba'a ciddii aad berihi jirteen allah subxaana wa tacaala. fitrada marka ahlu sunnuhu meelo badan bay u xujaystaan. waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo inuu ilahay keligii cibaado leeyahay. meelahaaso dhan waa loo xujaystaa, waa noo imaan doontaa biidni illahi tacaala. wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala afi llaahi shakun faadili الsamaawaati wاlard. aayadda markay culimmadu fasirayan waxay yidhahdeen laba macnaa ku jira. macnaha kood waxa weeye afi llaahi afii wujuud illah, ma ilaahay jiritaankiisa ayaa shaki ku jira. kaasi waa macna. alimaam ibnu kaiir markaa soo fasiraya wuxuu yidhi aayadda
أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. ها ما إلهي سبحانه وتعالى جيرتان كساعدنا شك وجرا فطرة بني آدم كأياب كم مرقاتئة والله سبحانه وتعالى أو كو أبوري إن أي قرسنتهاي فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة بيقول إن الله سبحانه وتعالى لقي جيرتان كسي وحدانية ديسا وضروري فطروينك سليمك أو أن لا وحوي هاللينين وي معناها الله بعدنا وحيكون معناه علماء أفي إلهيته وتفرده بالعبادة شك يعني ما إلهي سبحانه وتعالى إلهية ديسا ينو عبادة كليه هي مياه شك كجرا كان ضمن مركو علماء حوجيين حيرا آيات كاسي مناسب تهي وأي فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع وأي أمتها بدن كودو ويقر سنايا ربي سبحانه وتعالى جرتان كيسة الإمام ابن كثير مركو حويري ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى أمتها أنتو ضبطني ويقر سنايا جرتان كأله لكن waxay dooda ka qabeen waxay ahayd cibaadada in Allah loo kala yeelo waxayna alla la wadaajin jireen wasaa'id waxyaaba ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay dhihi jireen alla inoo dhaweynaysa haddaan aragnay sharcigeenu meeshu ka istaaga waxyigu in fitradu ay tahay shay sida muhiim ah oo ahlul cilmiguna say u fasirayaan al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala wuxuu yiri salafku waxay ku fasireen fitrada al-Islam طبعا مركا الإسلام اللي يراهده أساس الإسلام هو حوي وإلهي سبحانه وتعالى وحدانية إلا قروية تصين مركا أولاد جيدا مركا وليها علم تجريبي أيها لفت الكودو شواهد بدن أيها جرتا أو أيكو قريان إن أي بني آدم وحوي إلهي سبحانه وتعالى جرتا وحو لحدقة أيها طبعا واحد يعتني ليس إلهي أنس بينين لكن بني آدم كإن يكو أبو رنتهاي وحوي وهيلانان iyo maxaan ku yiraahdaa inuu u diyaarsan yahay dhinaca diinta ay sheegayaan مثلا qoliyaha cilmiga jiinaadka la yiraahdo wax ka qoray ama waxyaabaha hidasidaha bin aadanka waxa jira qolay wax ka qoray in bin aadanka uu ku jiro waxa la yiraahdo unug u qaabilsan diinta nin baa buug ka qoray mowduucaas waxa jira cilmi baaris ay ka qayb qaateen 57 cilmi baare oo 20 dawladood ka kala yimid waxayna ku sameeyeen jaamacadda Oxford ilaa Ingiriis ku taala sanadii 2011 ayaa la faafiyay cilmi baaristaas waxay gaareen nimankaasi in ilmaha yaryar ay dhashaan ayagoo rumaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qarash badan baa ku baxay 1.9 milyan oo giniga sterlinka ku baxay baxdiga kaliya waxa jira professor Maraykan oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa Justin Barrett baa la yiraahdaa wuxuu qoray book la yiraahdo بون بليفرس أو مركا لا ترجمة كل بحر نقضي فطرية الإيمان اللي هو ترجمة يعني إيمانك إنه المهكو دبع عيسى كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله سيدا يوسف كتيب وليه تجاربتها علمك تجريبك إن المه أي دشان أيوه إله سبحانه وتعالى رميسان بوجاس وحكيري المها الدين توحوي حريرك إلى اللي هو حرير قتل دير هي روح ليه هدي الملا قاضو oo jasiirad cidla la geeyo iyadoo waxba loo sheegin meeshaas waxa loogu tagayaa iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumaysan kolba waxyaabana waysan tajaarib la sameeyana way jirtaa oo arintaas xoojinaysa marka malaaxidada dadka la diidka ah si kasto isugu dayaan arintaas naftooda ka adkaatay oo markaas ay u khuduucaan yani naftoodu dhinaca ay u jeedo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay qirsan tahay waxa jira gabar oo Maraykana oo mulxidad ah dadka alladiidka ah 2016 waxay qortay maqaal ay ku qortay Washington Post waxay leedahay waxaan awoodi la ahay bay tiri naftayda inaan ka saaro oo qalbiga waxa weey laabtayda aan ka gooyo rumaysnaanta alla aan rumaysanahay marka dambe waxay leedahay anigoo sidaas ah ayaan haddana wax weey aan haddana waxay qaadatay mabdii xuma sidaas oo kale ayuu ninka la yiraahdo Nietzsche waa nin jarmalaho lagu yaqaan waxa weeye arimahan diin la'aanta ah haddana ma dalika markuu ka hadlayay wuxuu yiri wuxuu ku tusaaleeyay qofka nool asagoo Allah subhanahu wa ta'ala diidan wuxuu yiri wuxuu la mid yahay yiri dad maxaan ku yiraahdaa qof meel sare ka soo dhacayo mar walba hoos u socda yani tusaale cajiib waa runtii waxa tarjumadaas ka soo qaatay
دكتور سامي عامري كتابkiisa براهين وجود الله waxa weeye aad wuxuu ugu eegay hadalkaasi qowl Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قفك إلهي سبحانه وتعالى وشريك يالا وwaxa weeye kii alla diidan hadda waa ka sii xaq jiraaye wuxuu la mid yahay qof ka soo dhacay samada oo shimbir ay daftay ama dabayl meel xun ku tuurtay marka waxa weeye aad iyo aad bay maaragtay nimankaas u dhiban yihiin ninka la yiraahdo Schopenhauer wasna waa nin kale mulxida wuxuu leeyahay wasna waa Jarmal weeye wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Schopenhauer wasna waa nin mulxid oo Jarmal ah wuxuu leeyahay nafta bini aadanka wax ka gooyin kara buu yiri hilowga ay u qabto hilowga ay qabto ma jirto uu yiri nafta bini aadanku oonka ay qabto wax damin kara ama buuxin kara ceelka aan guntiisa la gaari karin ee qalbigiisa ku sugan wax buuxin kara ma jiro hadalkaas runtii aad wuxuu ugu egyahay hadalka Imaam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala uu yiri fil qalbi sha'athun la yalumuhu illa Allah qalbiga bini aadanka waxa ku jira basaas iyo baaba iyo boholiyow uusan aruurin karinin Allah ma ahan cid kale uusan maxan ku radaa uusan daweyn karinin wa fiihi wahshatun la yuziluha illa al-unsu billah wuxuu ku sugan buu yiri cidlo oo aysan zuulin karinin Ilaahi subhanahu wa ta'ala weheshada ma cid kale inta markaa aan uga gudubno qaabka loo daliishanayo fitradu waa laba qaab haddii aan aragnay waxyigiina inuu sugay cilmiga tajriibigana uu sugay oo la isku waafaqay in meeshan wax ku fitra ku jirto bini aadanka ay diintu ay tahay wax ku jira maxaan ku raraa naftiisa ama jiinaadkiisa ku jira waxaan leenahay su'aasha ugu hore la weydiinayo waxa weeye qofka diidan yaa meeshan galiyay fitradan qaabka labaad loo xujisanayo waxa weeye tusmada Allah subhanahu wa ta'ala ay tusayso qofku markii xaaladda aad ku timaado dhammaan dadkii maxay dhamaantood ugu cararayaan xarga Rabbi subhanahu wa ta'ala oo Fircoon ban waxa weeye aad arki doontaa hadii ayada Quraanka aad akhriso Fircoon baa tusaale soo qaadanayna markii waxa weeye ay baddi ku maaragtay ay maashayn rabtay wuxuu yiri فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأسديبي أول نوادي دنا بل أسجى ربنا ما شكتي سيدا صار كلا واحد جرى الملحد هو محمد القصي سرور واحد كجرت يوتيوب نين ملحد هو ما أرتي ديدن كبدي صح نوصتي لقاتيرتي وجيي وحال يري كبدان بسوي وحوي سيد لقاتيرته قياسي إن ما أرتي كبدان يسرجلهن وحوي وقت لو دمان دونته marka wuxuu yiri intaan cararay oo ka baxay qolkii oo meel kala tagay baan Ilaahay buu bariyay wuxuu Ilaahu hadii aad jirto yaa cunugtaas ay caafimaad wax yar kadib baan soo laabtay buu yiri si khushuuc la marka Ilaahay u soo bariyay waan imid buu yiri dhaqaatiirtii wuxuu yiri yaa ban baan imid war gabadhii waa isbedeshay xaaladeedu ma aragtay waa soo roonaat ninkuu soo islaamay waxa jira mahmah galbeedku aad u yaqaanaan oo marka mowduucan aad ugu dhow there is no atheist in foxholes waxa loo tarjumay la yujad malahidatun fil khanadiq yani dhufaysyada dagaalka wax mulxido alladida kuma jiro yani xaaladdu markay adkaato dadka dhamaantood waxay u cararayaan xagga Rabbi subhanahu wa ta'ala way marka runtii fitradu waa daliil aad iyo aad u qiimo badan ahlu sunnuhu meel weyn buu u joogaa waana mid ka maantay malaahidadu ay mari la yihiin weeye oo nafsadooda qofka bini aadanka naftiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu hadlayo wa fi anfusikum afala tubsiruna billahi warmiina naftiina arag marka insha Allah ta'ala maanta ku soo gaabinayna hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad